bilowgii khilaafka labada mas'uul ee ugu sarreeya Puntland madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha 7 bishii February 2019 ayuu bilowday maalmo uun markii ay talada la wareegeen mas'uuliyiintan dhismihii golaha xukuumadda ayaa ahaa waxa ugu horeeyay ay isku qabteen madaxweyne Dani waxa uu doonayay inuu yeesho kala doorashada xubnaha kala duwan ee ka imaanayay gobolada Puntland gaar ahaan si gaar ah Sool iyo Cayn Axmed Karaash wuu diiday go'aankaas isku qabsigii wasaaradaha arrimaha gudaha qorsheynta iyo maaliyadda ayaa gaaray halkii ugu adkayd inkastoo markii dambe Axmed Karaash uu tanaasulo oo uu qaatay wasaaradaha deegaanka warfaafinta iyo duulista hawada halka uu rabay arrimaha gudaha ama qorsheynta midkood inay dhankiisa marto isagoo ku doodayay in saami qaybsiga golaha wasiirada ee marar kala duwan oo la soo dhisay uu sidaas ahaa magacaabidii guddiga doorashooyinka oo Axmed Karaash doonayay inuu yeesho labada xubnood ee ka imaanaya Sool iyo Cayn ayaa ahayd arrin xasaasi ah oo waqti badan la geliyay laakiin saaxiibada madaxweynuhu waxay madaxweyne Dani ku cadaadiyeen in labada xubnood u magacaabo xubno ay siyaasad ahaan isku milan yihiin ugu dambeyntiina Axmed Karaash waa looga guuleystay magacaabidda labada xubnood oo lagu soo daray laba xubnood oo saaxiib aan la ahayn dhankiisa laakiin ay isku deegaan ka soo jeedaan khilaafkaas ayaa bannaan ka yimid wuxuuna gaaray in kulanka golaha wasiirada dhexdiisa hadallo xanafna ay isku dhaafsadaan labada mas'uul sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada oo maalinkaas ka qaybgalay kulanka oo ka dhacay xarunta wasaaradda maaliyadda isagoo xilligaasi madaxweyne Dani wuxuu sheegay inuusan ku arag dastuurka Puntland meel uu uga khasban yahay qaadashada talada madaxweyne ku-xigeenka taasoo madaxweyne ku-xigeenku uga jawaabay inuu ku khasban yahay Dani qaadashada talada iyo go'aankiisa ugu dambeynse waxa lagu xaliyay arrinta si hoose waxaana qayb ka noqday siyaasiyiin hore iyo xildhibaano inkastoo aysan jirin faahfaahin badan haddana dagaalkii baarlamaanka ayaa yimid oo saameyntiisa lahaa madaxtooyadu waxay u aragtay in hoos loo dhigay khilaafka Axmed Karaash si looga guulaysto mooshinkii markaasi taagnaa ee la xiriiray gudoomiyihii baarlamaanka ee hore Cabdixakiin Dhoobo Daareed bilowgii bishii Abriil ee sanadkan ayay jireen isku dayo madaxweyne Dani doonaya inuu isku shaandhayn ku sameeyo golaha xukuumadda iyo agaasimayaasha wasaaradaha qaarkood labada mas'uul kuma heshiinin magacaabidda nooca ay noqonayso xubnaha xilalka waayaya iyo kuwa sii haynayaba Axmed Karaash wuxuu doonayay in wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha gudaha midkood ay helaan gobolada Sool iyo Cayn taasoo hore uga mid ahayd saami qaybsiga kuraasta golaha wasiirada laakiin bilowgii bishii February uu ka tanaasulay si khilaafka marka ay cusbaayeen meesha looga saaro xilligaas warbaahintu waxay heshay macluumaad ku saabsan isafgarawaaga dib u dhigay dib u habayn lagu sameeyo golaha xukuumadda isku shaandhayn laakiin labadooduba waxay siyaabo kala duwan u beeniyeen waa madaxweyne Dani iyo madaxweyne ku-xigeen Axmed Karaash warkoon ay sheegeen inaysan xilligan ku hawlanayn qolyaha wax sheega waxay qorqoraan ilaa shalay aan ku arkay malado raadiyo balaay sheegan waxaan jirin bay sheegaan waxaan maqlayay madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo baasaya federal iskala daaray waa la kala kacay waxba dawladaha la dhisayaa waa la isku diiday waxba kama jiraan wadin sheegin waxaan rajaynaynaa inay hubsadaan wararka saxda ah ee Puntland meelaha muhiimka ah idaacadaha iyo telefishinada sharciga haysta ee la yaqaan ee lagu la xisaabtami karo waxa ay sheegaan inay ka qaataan macluumaadka waxa jira website-yo iyo pages badan oo magacyo iskala baxbaxay oo magaca Puntland wax iska daba raaciyay oo aan sax ahayn caqabadaha kale ee iyana dibka u dhigayay in isku shaandhaynta la sameeyo waxa ka mid ahaa arrinta la xiriirtay coronavirus oo xilligaas birbilow ka ahaa Soomaaliya madaxweyne Dani ayaa isbeddello ku sameeyay gudaha wasaaradaha qaarkood talisyada ciidamada booliiska sirdoonka daraawiishta birmadka BNBF-ta oo ah ciidanka badda iyo la dagaalanka argagixisada dhammaantood Axmed Karaash waxa uga dhex muuqateen xilalkii laga qaaday xubno ka soo jeeda gobolada Sool iyo Cayn madaxweyne Dani ayaa wareegta la qariyay xilkii uga qaaday agaasimihii waaxda qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka wuxuuna u magacaabay qof ka mid ah eheladiisa iyadoo booskan laga qaaday qof ka mid ah ehelada Axmed Karaash sidaasoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka ayaa loo magacaabay shakhsi ay wateen kooxda lagu tiriyo inay markasta qayb ka yihiin go'aamada madaxweynaha ee Aranjan taasi waxay horseeday khilaafka oo si hoose ku socdo inuu kor u kaco sidaasoo kale waxaa taagneed oo aan weli xal laga gaarin iska horimaad dhimasho iyo dhaawac sababay
oo dhex maray ilaalada madaxweyne ku-xigeenka iyo ciidamo ka tirsanaa kuwa bandowga ee magaalada Garowe. Taasi waxay sababtay inuu geeriyooday sargaal ka tirsanaa ilaalada madaxweyne ku-xigeenka haystana qaybta wardoonka. Warar xoogaal oo aan helay waxay sheegayaan in madaxweyne ku-xigeenka dhankiisa ay aaminsan yihiin inuu ahaa weerar abaabulan oo la doonaya in lagu beegsado xubno door oo ka tirsan ilaalada madaxweyne ku-xigeenka. Ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa shalay magacaabay taliska ciidamada ilaalada madaxtooyada markii uu iscasilay taliyihii hore, laakiin xilkaas taliya ku-xigeenkii hore baaqi ayuu sii ahaa, mana uusan iscasilin. madaxweynuhu wuxuu u magacaabay mid ka mid ah eheladiisa oo hore u haystay horinta gaarka ilaalada madaxweynaha ku-xigeenka oo uu joogay. Cabdirasaaq Haybe ayaa laga qaaday. Haybe ayaa ka soo jeeda dhanka madaxweyne ku-xigeenka, waxaana lagu bedelay sargaal ka tirsanaa ciidanka oo ku yimid doonista saaxiibada madaxweynaha. taasi waxay muujisay mar kale khilaafka labada mas'uul oo ugu sarreeya ee Puntland. madaxweyne ku-xigeenka ayaana xalay saqdi dhexe soo saaray wareegto uu ku burinayo tii madaxweynaha, waxayna muujinaysaa inuu hadda bannaanka khilaafka u soo baxay. isku day la xiriira in baarlamaanku ay saamayn ku yeeshaan khilaafkan ayaa jira, mase aha mid ay weli labada dhinacba aad ugu bareereen, iyadoo ay adag tahay in mooshin la iska keeno. haddana maxkamadda sare ayay u baahan tahay mooshin labada mas'uul ee ugu sarreeya Puntland markayse ay iska keenaan. waxaana muuqata in baarlamaanka oo dhowaan kal fadhigoodu uu furmayo ay ka imaan karto haddii aan xal laga gaarin isjiijiid arrinta la xiriira. sidaasoo kale xubnaha golaha wasiirada ee Puntland qaarkood ayaa maalmihii u dambeeyey wadnaha farta ku hayay. agaasimayaasha wasaaraduhuna waxay ahaayeen waxyaabaha kala duwan ee labada dhinac ilaa iyo hadda ay isku fahmi laayihiin. ma aha markii ugu horreysay ee khilaaf noocan oo kale u yimaado, laakiin waa markii ugu horreysay ee labada sane ee ugu horreeyay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ilaa hadda ay isla jaanqaadi laayihiin waraaqo kala duwanna ay ka soo baxaan xafiiska madaxtooyada.